si ay mar walba kugu soo dhacdo xubinta kalamaan ee Radio Kulmiye fadlan subscribe saar janalkan warwaadigan kashkashlayna kelmadaad mar tiraahdo mid kaabir ahayd kulna aan oranayni ma kaftankii kalamaane kulmiyad ku barbaartay qofba meesha karaysa waa inuu ka hadlaayo taada haygu kabix aga eega managa isku maana maxaad kayga ku diidi no dadkan la isku kabaayo midba koonaha jooga adeer isku keenay kuroodaanan kolkooda way kurbadi ahayd sheegado boowe kolkan geela u heesno aad dameera kaxayn hadduu kaagu shaariya ma kayga niqatala dadku waa kalamaan kulmiyana midaysay maxaa tiiriya may erti midi midaysay maahino aryaadaha heer kalamaano anigu waydan la taliha waxbardha'aan barwaaqa gaarne warniyo maanta carab waad iska bedeshaa umalayna carab loodaad ku haystay war carab looad waa qaaliyoobay carabka loodu umulugow u rooli yahaye maxay nagu qaaliyeeyeen war macayniganaad waxbarasho ku gaadhay miya nin walba allaha sug maanta war yaab leh ayaa idinka yimid oo 80 jir ah ayaa bala waxbadha isla 80 jirna waxay leedahay umulooba hayo carabkii looda lagu qaali gareeyay waaba arin cajiib ah war wax ka soo la sheegay qoodi wuxuu umaleeyaa in ixtiraafkii la hor istaagay war naag Chinese oo qudaar ku gada Somaliland ayaa bana ixtiraaftay maada warbahaya aryaadaha warka hayga dhaxgelinay waxbardhan idin iriyay degansada Somaliland waxa la sheegay arday 400 ka badan oo deeq waxbarasho Itoobiya ka helay inay jaamacada u aadeen Puntlandna intaas oo kale la sheegay inay jaamacada u aadeen muga waxaan la yaabanahay Itoobiya deeqda waxbarasho malamadaas laan kaliya hay siisay mase inta kalena waa siisay waa qarsahayaan war ma ogidi wasiirka waxbarashada baarlamaanka wuxuu ka jeediyay ma ahayn deeq waxbarasho waxay ahaayeen hidaha qarsoon Soomaalida waa ku wareereen laakiin aniga markaan xuraansi carada u galay waxa la yiri NGO UNESCO wadata way marka waxaan la yaabanahay waxa baarlamaanka hawl u yaala iyo NGO-ga golaha ka hor arganayo aryaa wax la qarsho ama waa qurmaan ama waa qubtaane shib naga dhig Cabdullaah mahmaayada ku dheelin xalaal barqa la qashaaweeye war mahmaahadan ka dheelena saar walaha min leelki luntumo lugaan la bangaleere war mahmaayada ku dheelin ciyaar haddaan wax ku jirin maxaa habeenkii loo tumaabay ahayd war mahmaayada ku dheeline soo joog ninka laga waayo soo jiif baa laga helaa arqowdanow saas maahina afkay ku cuntay ku haybayda waaye war Cabdullaah ku dheelin baasha wax taga tiigsimaad ma la weeye war mahmaayada ma taqaanina ku dheelina islaan dhali weyday aleela ku waalatay la yiri war saas ma ahayne waxa la yiri reerba ay beena biisay ar sidaas ma ahina heerba oo yaa kule waaye war saas meedad koona baruura jibiyo dad koona baahi dhamaayo haytu war mahmaayada ku dheelina saas ma ahane reer rag leh roobsan ma ogolaabay ahayd war rag waxay ku mahmaahan dumar beena lagu soo xarigiliya runtuna waa lagu dhaqaa war gabdho hadda waa bedeleen mahmaayadaas rag meeg abba lagu soo xarigiliya bay yiraahdeen midabkaagana waa lagu dhaqaa aryaadaha sidaas oo dhanba maahina waxa waaye ninna shaahow shuba waayay ninna shaarka ku yaraaday waaye war saas ma Cabdulle shabshablow shinka quraanka ninki sheega ma shalaayo waaye Cabdulle wareerda Somaliland iyo Puntland deeqdi waxbarasho heleen waa cadeen ardadiina waa dirayaan inteena kale ma beecbay noota ma garanayna wararta waxa la yiri dawladda waa hooyo musuqna waxa ugu daran baa la yiri hooyada lagu aamini waa caanaha ilmaheeda warba musaasada ka cabta caanaha ilmahooda rag baba jaad buuna walaa waxa hore loo yiri maray soo riis nuugtaayo wixii laga raabay rabta maray riis nuugtaayo wixii laga raabay rabta yaahu war mahmaayadu sidaas maaha nin bukan nin baahan barax looguma dhiibaalay aryaa mahmaayada hayga dhaxgelina shibiga dheh waxa kale hore loo yiri rinoolu ridhimaatayay karoonto
reejay qabta rinoolu ridhimatayay karoonto reejay qabta allah u naxariiste abdulla warka eedeeda angoradii Puntland iyo Somaliland raje gabangu war maxaad beenta u sheegaysaan kuwaas annagaaba nabad iyo nolol haysanoo kale jafiican nabad hee hore midaysa ugu biiray war ma haysiine Kenya iyo Soomaaliya waa heshiiyeen aliiri badii yaalisi badii maxaa ku bedelanay 4 sano soo saata ama la isku dhakan yahay xal lagu heshiiyahay war xanuun idin hayaa idinka soo burqaday warka naga dhageysta labada dawladood waxay ku heshiiyeen inaan dacwada baddu ganacsiga iyo bini'aadanimada saamayn mugama Kenya loogu danay hay'adaha qaad ku baaraahay war annaga lacag ugu baaraysa warnimada war ma haysaane waxaan ogaanay sababta baarlamaanka iyo mooshin uga keenay waayay baarlamaanka waxa la sheegay inuu siyaasado badan kala xiran yahay marka mooshin Kenya hadii laga keeno qola Itoobiya ka keenaysa liidi Itoobiya hadii laga keeno qola Qatar ka keenaysa liidi Qatar hadii laga keeno qola Imaaraat ka keenaysa liidi Imaaraat hadii laga keeno qola Turkiga ka keenaysa liidi Turkiga hadii laga keeno qola Eritrea ka keenaysa liidi marka mooshinka waa soconayaa baaliye mar haduu bilowdo ilaa Vietnam laga keeno Vietnam mar hadii laga keenana farmaajo ku xiga marka waa in la joojiyaa hadda marka hadda korba Mustafa Shacilmi wuxuu yiri ismoog Soomaaliyeey mas'uuliyad u dooranaa oo aan meel laga lahayn war wuxuu raaciyay oo hay war maalintii lantarta maay ra'iisul baarlamaanka jawaari may baaray ana iswada malan iwada male waana aadi lan wadana gabalku ma ka shaqeeyo war baarlamaanka mustaqbalka dalka aan ka sugayna madalla iskale war waxa la yiri inuu cadawiyamay islugu rito dulna kala yeeshay qorshe Yurub ka yimid iyo inay yuurana hagayso inuu sixir reeyag noo rogo yuruntidii joogto halka looga yimid yaa yaqaan yaa bal loo dhimay war ma haysan war riyoone naga dhageysta riyana xayta meeqa riyahayga anigoo birayhaya ku riyoohaya wariyadaan waa riyo siyaasiina dhageyso riyada siyaasiga haba idibtay aniga habeen kasta anigoo madaxweynahan ku riyoodaa subaxdina waxba mii war waxaad noo sheegaysaa waa maxay xagee riyaha siyaasiga ay daaqaan war maya wuxuu wadaa kalaam layl ma yamshi nahaar war dad maranaatiina warka naga dhageysta madaxweynaha Soomaaliya ruushow aadaya hadda runku suga waa ku riyoonay riya ku qaab daranida saad isu waafajisay madaxweynihii shalay Mareykanka ka yimid ra'iisul wasaarihiisina ku maqan yahay foogta ruush aadaya yaad u sheegay kuwaas war ruushkii hore iyo Mareykankii hore maahan waa wada daaqaan oo waa saaxiib hadda Trump iyo Putin hadday wada daaqaan iyo hadday dagaalaan anaga waxba naga quseeyaan ruush waagu Itoobiya nooga hesho waa naga xiriirka u jarnay goorma la soo elshoorta war maada war haya Abiy Ahmed miyaan Itoobiya dhan bedelin oo farmaajo la saaxiibin war dawla waraaqu ku yaale Itoobiya lafteeda goormaan heshiin war dawaya warkii dawla waraaqada ku qornay mar hore ilaha ka tabay Facebook ana anas dhiko hay waraa ku daalin hogolka galmudug waxba kama dhaadhicin kartaan adduunka lama socdeen horta anigu galmudugaan la yaabay waxaan maqlayaa ahlu sunno dhahaysa la kulmi ma inna wasiirka arrimaha gudaha mugama maran yihiin madaxweynaha ku meel gaarka ee galmudug inuu yahay ma oga miya abdilow may bahil maantay falkireer galmudug aadiyo hayti wallahi aan leeyeen oo billahi leeyeen la leeyeen doonin ma anaga inta wax la soo dhoobdhooba halkan lagu soo xukumaya asan la fariisanayna wallahi aan leeyeen ma la yeeli doona war galmudug war kama haysaane aeroboortka dhuusamarreeb waa la xir kaarakiyaal oo are awalka gadiyay war hadda ma aqaan muxuu yiri ninku war ciidanka la geeyo waa meeqa ku yiri dhagxaya ciidsa meeqa lagu gooyay ku yiri war ciidanka adduunka ugu fiicnaa wax xirtay warka naga dhageysta war uu shaakira hiriday u sii arin jiray ciidanka aan halkan naga ku hayno ciidan adduunyo ma ciidan aqara weeye cuntayna ma ahaatoyna ma waa ciidan aqara ogaada war ciidan cirka ka soo daatay weeyana maqla haddaan gartay cirkaba hadday ka soo daateen waa danab war codada qabtaan baa ka hadlaysaane roob baa ku daaya xareed baa dhex taala sidaa darteed wuxuu xiran yahay xareed calooshu ku wareegtay maanta oran maana tiraadi roob ku daaya markaad ciidanka wax naga daba wareegayso iyo minay wax tarayaan fagaxba waa xirteen xad naga wareerihaysa war biyo ab wal halaayaan masaajidka reer hortiisna had dhooban yimay wadi aan laga taqbiyaaday wax tarayaan isbartirada horteeda wadada aada looga go'ay maan dheeskow biyaha daad rabtiin wasaaradda boostada dhinaceeda yaali war adeer meeshaas miyana dawlad hoose joogin war maysiina Puntland waxay amartay in xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya aysan xafiiska furi karin deegaanada maamulkaas wasiir Jamaal Shali xafiis furtay ayaana markaas ku soo baxay war been badnida xildhibaanad ba hadda ka hadlaysay goormad wasiirkana u gudubtay war yaa warani gaashan miyaadan aqoon wareer hal ku dhageeyada nabad iyo nolol waxa kamid ah waa dhex galnay waa isticmaalnay buudkan kula tumanay marka Puntland in la dhex galay ka baqday war meesha doonta hubka sida ay ka degtay waa hub iyo beentan iska daa war maysiine ciyaalkii Facebook dibadda ay qabaan ma ku jiqan tahay adeega ku tahay warkayga maqal xildhibaanada loo xil saaray hadda ka hor inay caayaan
haddana xildhibaanadii u baahdeen teleefankan waa ka qaban laayihiin oo waa lagu adkeeyey markii hore la isticmaalano markii hore faaqda badiyeenno waa ku daadsantahay amal maa kalaamaysinno nooh badan idiinaano kalamaan markay ciyaalsiyadu ku soo biirtaan nacaano war carruurta ciyaalsiyada noohay ku waasheen waa nooho loo gado warradoo nagala tag sheekada noohadu way qaraxdaa baa la yidhi hadda ka horaa ciyaalsiya shirbay nooh wuxuu yidhi nooh haddaysaanaagu nooh leehayd anna ninkeeri mihii nooh war wasiirka caafimaadka ee somalilan wuxuu sheegay 3 qof ee soomaaliyaba inuu nin waala yahay markaa noocii baa tiinader war wasiirku somalilan kuu sheegay dadka ictiraafka raba war naga taga waxaa la yidhi 3 qofood oo nabadii nolol taageertaba laba mushaar qaadata anigu nabad iyo nolol waa taageera mushaarna ma qaato waagi horena xisbiga hanti wadaagay ka mid ahayd haddana xoogaga wadaniyiinta lagu daray hala yaabina duqda war ma haysaana buluburdi jallaqsi inta u dhaxaysa shabaabaa sidii dadkii u gali jireen loo galay ma loo nasteexeeyey war waa lagu nabayna dhegayso caasiyaal iyagoo ku raran aajidka loo galay hadda si ay yeeli jireen la yeeli ninkii jidka la jida loo gala war ma xasaas jidkaagay ka go'an tahay waxaad jiidataa bari weey war sidaas maahane rag waxaa lagu bartaa jiddi jidiin waay aryaadaha sidaas maahina beer waxaad ku abuurataad ka gurataa war saas maahane nintiin abuurta timir uma baxda weey war xaaja nin la toosanin inay tuur la leedahay weey artimirta siibatiin talaal waa talada Soomaalisay u taal tiin 3 maalmood buu ku baxayaa timirna 30 sano la sugayaa ma walba isku mid ahaayeen waradeena ummadii tisha weyda waa loo taliyaa hankooda galmudug warkiisa waxaan ku ogaaday in yahay gal cambaha sirraha ka samayn jiray meel kale ha ka raadin war waxaan u malaynayaa ragii qandalada bilaqada lagu galo inta furtay ibnu Abbas iyo ibnu Umar uu la baxay inuu kamid ahaa adigu waxaad ileegtahay ninkii gaariga uu soo dhacay tabeetigiisa safaru salaama ku qortay wareer koofur oo baan siin baranay bas noo era kii geela inta soo dhacaaniisa inta ka dhargo meel seexda allow nabad noo naadi dhahayo kale waay war yaa aniga imadii karti warkaas yaa geed yaa ka soo dhacday iga tagiyo wariyuna waxa ku diibay wallahi waa soo meelay ma yaa dawladnimadii la dhacay geel maxaa ka sheegay wadaha wallahi sida war baasaydan nabe hadda inta geel Indoneesian miya